socdaalkaaga aad ku timid magaalada Muqdisho waxa uu ku saabsanaa horta waxaan ku timid meeshaan Muqdisho reer Muqdisho ah waana dee adduunkaas ku soo jeedin kara dadkan miskiimiinta waxa ay u baahan yihiin intaas aan maxaad aragtay marka dhakhtarka wuxuu tusayay isbitaalka conditionka aniga waxaan la yaabanahay waxa waaye waxyaalaha ugu sahlan ee dadka u baahan yihiin waxay u baahan yihiin space waxay u baahan yihiin sanitation waxay u baahan yihiin wax yar oo assistance education waxay u baahan yihiin dadkii waxyaalo yar waa updating ay u baahan yihiin isbitaal waxa waaye oo sida dhakhtarkii uu sheegay 40 sano ka hor la dhisay marka ma haysan karaanba waxay u baahan yihiin xilli macluul badan jirto ayaad ku soo aaday oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dhimanayaan adduunkana sumcad badan baad ku leedahay maxaad u sheegi lahayd ku daawanaya ku dhageysanaya adduunka horta waxa weeye waxaan ka jeclaan lahaa sidaan inaan anagu ahayn dadkii dhibaatada dadkan saan loo soo fiirinayo oo dadkan maaragtay maanta macluush dadka u baahday dadka kale because waa ka roonahay sidaas hadda aniga isleeyahay Soomaalinimada marka waxaan jeclaan lahaa inay Soomaalidu horta marka hore ay iyagu ka kacaan hurdada ay jiifaan because waxaani waa iskaalmeynta waxa weeye haddana waa 21st century joognaa maanta dadku adduunka uma dhintaan macluul annagaa u dhimanayna marka waxa weeye waa Africa hurdo anigu waxay ila tahay haddii aan hadeer wax la qaban karo waa in la qabto oo dadka miskiimiinta in loo imaado wixii aad dhiibi karto aad dhiibto oo loo soo gurmado dadku waa tahay laakiin kadib waxa weeye fakar in la sameeyo oo la yiraahdo maxaa meeshan maanta ninkeen way ugu dambeyntii ma laga yaabaa sumcadaada inaad uga faa'iideyso carruurta Soomaaliyeed ee baahida u dhimanaya oo aad u samaysan lacag ururin waa tan ku jiro waa hawshan u imid waxaan bilaabay hawshan markii dhibaatada aan ogaaday aan bilaabay insha Allah wixii aan aniga dhinacayga wixii aan qaban karo waxaan u wadnaa waxaan wadi karno hadda waa maaragtay insha Allah laakiin waxa ka weyn waxa aan qaban karno runtii booqashada madaxweynaha Djibouti waxay ahayd fursad aad iyo aad u qiimo badan qiimo weyn ugu fadhida shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan filayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee muddooyinkan dambe dalka Soomaaliya iyadoo dhibaato fara badan ku jirta yimaada oo waqtigiisa iyo u soo hora qayb ka mid ah noloshiisa ayuu ahaa runtii Ismaaciil Ulgeelle waana madaxweyne mar walba garab taagan ummadda Soomaaliyeed garab taagan inta markaan uga baxo runtii waxaan u hambaleynaynaa shacabka Djibouti dawladda Djibouti runtii oo mar walba garab